deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud oo maalmihii la soo dhaafay ay ka taagneyd colaad beeleedyo u dhaxaysay Maleeshiyo deegaankaasi ku wada sugan ayaa waxa halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan dawladda federaalka kuwaas oo ku guuleystay in ay xabajoojin dhex dhigaan maleeshiyaadka dagaalamay isla markaasina ay kala qaadaan saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya iyo ciidanka booliiska Galmudug oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug iyo odayaasha guddiga beesha Habargidir ayaa deegaankaasi gaaray waxa ayna ku guuleysteen in ay kala dhex galaan maleeshiyaadka dirirtu ku dhex martay Xananbuure maalmihii la soo dhaafay taliyaha qaybta guud ee booliiska Galmudug sareeya guud Bishaar Abshir Geedi iyo gudoomiyaha guddiga beesha Habargidir Professor Shirwac oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay dadaalada ilaa hadda ay sameeyeen si loo baajiyo colaadda ka taagan deegaanka Xananbuure iyo deegaano kale oo ku xeeran waxa lagu guuleystay in ciidamadii ama maleeshiyaadkii hor fadhiyay la durjiyo meelay ka kala yimaadeen dib loogu cesho ammaankiina ay la wareegeen ciidamada amniga qodobadii lixda qodob ahaa ee la soo qaaday qodobkii u horeeyay wuxuu ahaa xabad joojin shuruud la'aan waa hirgalay in ciidamadii la kala durjiyo oo meelahay ka yimaadeen la geeyeen qodob uu ahaasna waa hirgalay ammaanka in ciidamada amnigu la wareegaan asna waa hirgalay alxamdulillaah qodobo yar oo dhiman oo ay ka mid yihiin in isku socodka wadooyinka la furo oo sidii xasiloonidii hore dib loogu soo cesho si nabadgelyana loo isticmaalo qodob ah in birmageydada dhalinyarada carruurta iyo hooyooyinka iyo odayaasha iyo culummada iyo abwaanada iyo in alla intii loo yaqaano birmageyda ayadana la ammaan gasho la nabad gasho ciidanku deegaankan waxay u yimaadeen inay la wareegaan amniga deegaanadan colaaddu ay ku fogaatay waxaan si xoog ah aan uga saarna meesha maleeshiyaadkii shalay Xananbuure isagoo hortimid haddii aan xalay si dheer mada goobtan aan ku soo gaari lahayna runtii dagaal ahliya oo xun oo la isku dhamaado oo ka dhici lahaa maarna meesha inaan baaq uga dirno anigoo fursadan ka faa'iideysanaya odayaasha dhaqanka beelaha oo runtii maanta ay ku soo biireen odayaashii beelaha Habargidir oo hogaaminaya Professor Shirwac iyo xubnihiisii ku xigeenadiisii iyo xubnihiisii guddigaas oo runtii gobol nabadeed isla maanta meesha dhigay waxaan dhammaantood ugu baaqaynaa odayada beelaha iyo cid kasta nabadda inay qayb ka qaataan inay nabadda ka qayb qaataan qoysas fara badan ayaa ka barakacay colaadda ka tagan deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud iyadoona odayaasha iyo waxgaradka ku hawlan yihiin sidii loo dhameyn lahaa colaadda ka tagan deegaankaasi waxaana ilaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay colaadan ay noqotay mid soo laalaabatay iyadoona mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ay arrimahani ay horay u galeen balse ilaa hadda aysan xal waara ka gaarin Daahir Maxamuud Cabdi Daahir Yare wararka warbaahinta Star Dhuusamareeb